assalaamu calaykum. Wiil faqiir ah ayaa wuxuu ku noolaa meel kaligiisa, cid wax siisana ma haysan. Maalin walba wuxuu iskuulka aadi jiray isagoon wax cunno haysan. Markuu helana wuu iska cuni jiray. Iskuulka xilliga uu ka imaado ee carruurtu nasato wuxuu bilaabi jiray inuu qashinka guro ka raadiyo cuntada uu ku noolaan lahaa. Sababtoo ah qoyskiisu waxay ahaayeen kuwa waxba haysan. Ilaa uu maalin maalmaha ka mid ah arkay gabar aad u qurux badan, gurigay ku nool yihiinna aad u qurux badan yahay. Caawimaad ayuu weydiistay, wuxuu ka dalbaday cunno. Gabadhii ayadoo iska ilaalinaysa xaafadooda ayay u keentay maalin walba. Haddaba hooyadeed ayay u sheegtay inay wiil yar oo Charla ah caawimaad weydiistay, kadibna iyaduna cunno u geyso. Hooyadeed ayaa ku xanaaqday, waxayna ku tiri, adigoon wax is-su'aalin ayaad qof waliba iskaga jawaabaysaa. Maalin dambe wiilka ayaanan kugu arkin. Wuxuu adduunku isku raba way kala guureen. Markii ay kala guureen, wiilkii wuxuu bilaabay inuu u gudagalo waxbarashadii. Mar walibana ku fikira inuu noqdo dhakhtar isagoo ah faqiir, aanu wax uu ku quracda haysan. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu aaday meel cunno lagu sameeyo. Kadib wuxuu bilaabay inuu iibsado cunnada. Waxaa arkay ninkii gadayay cunnada. Wuxuu u fiiriyey si yasitaan ah. Maxaad rabtaa ayuu ku yidhi wiilkii. Isagoon u jawaabin ayuu cayriyey. Sababtu uu cayriyeyna waxay ahayd duruufta ka muuqata. Waxaasoo dhibaato ah oo haysata umuna dulqaadan inuu isdhiibo. Gabartii yareed ee cunnada u keeni jirtay hooyadeed ayaa aad u xanuunsatay. Isbitaalkii ugu dhowaa ayay hooyadeed kula carartay. Markiiba emergency ayaa loo gudbiyey. Cidda u gudbinaysay waa wiilkii faqiirka ahaa. Isla markiiba dhakhaatiirtii ayaa la howlgeliyey. Waxaa la baadhay arrinta hooyadu u xanuunsanayso. Markii muddo la baadhay way ku guuleysteen. Ilaahayna wuu u soo saaray daawadii. Markii ay wax yar uga harsan tahay bixitaankii ay baxayeen isbitaalka ayaa wuxuu ku yidhi, waad ku mahadsantihiin cunnadii aad siin jirteen. Hooyadii aad ayay u murugoonaysay, iyadoo ka murugoonaysa ficiladii ay wiilka yar kula kacday ee laga fiicnaa. Isagoo dhoola cadaynaya wuxuu yidhi, hooyo iga raali noqo, maanan rabin inaan ku murugo geliyo adigoo xanuunsanaya. Haddaad muuqaalka sheelaag saar, sidoo kale channelka subscribe saar si aad ula socotid barnaamijyada soo gelino. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. Mahadsanid.